السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام دمان أصحابتك وحرن جنرالك أقون وذاك فيديو كلو آد وحيسا بدن فيديو أنا maanta waxaa idinku sharxi doonaa 5 wado oo computerkaaga aad ku damin karto. Wadada koowaad waxay tahay waxaa isla qabanaysaa window buttonka keyboardkaaga iyo R window buttonka keyboardka R marka isla qabato qaybtan waxaa ku qoraysaa marka shutdown space/s marka ku qorto kadib okay hada taabato computerkaaga sidaas ayuu ku dami doonaa. taasi waa wadada koowaad. wadada labaad ee computerkaaga aad ku damin karto waxay noqonaysaa waxaa isla qabanaysaa window keyboardkaaga iyo X isla qabanay window buttonka oo keyboardka iyo X marka taabato laba mar ayaa waxaa taabanaysaa U xarafka U ee keyboardkaaga ayaa laba mar taabanay hadii laba mar aad taabato computerkaaga sidaas ayuu ku dami doonaa. wadada kale saddexaad ee computerkaaga aad ku damin karto waxay tahay waxaa tagaysaa qaybtan start menu marka tagto waxaa kasii dooranaysaa power marka doorato waxaa u jeedaa shutdown hadaa doorato computerkaaga sidaas ayuu ku dami doonaa. waa wadada saddexaad. wadada afraad ee computerkaaga aad ku damin karto wuxuu noqon doonaa waxaa isla qabanaysaa control alt iyo del isla qabanay keyboardkaaga control alt iyo del marka isla qabato keyboardkaaga waxaa ku soo furmi doonto daaqadan cusub kadib waxaa ka soconaysaa tab buttonka tab ee keyboardkaaga ayaa ka soconaysaa oo ujeedaa ilaa iyo aan ka gaaro qaybta shutdown markaan gaaro waxaan sameyn karaa inaan taabto enter hadaan taabto waxaa ii soo baxay marka shutdown iyo restart. aniga muhiimadeeda waxaa waaye marka computerkayga inaan damiyo kadib waxaan dooranaa marka shutdown anoo ka soconayo arrow keyska up and down marka shutdown ayaan dooranaa kadib enter hadaan taabto computerkayga sidaas ayuu ku dami karaa. waa wadadaasi waa wadadii afraad. wadada shanaad ee ugu dambeysa ee computerkayga aan ku dami karo waxay tahay badanaa la isticmaalo waxaa taabanaysaa alt iyo F4 keyboardka ayaa isla qabanaysaa alt iyo F4 keyboardkaaga marka isla qabato alt iyo F4 keyboardka waxaa isla markii kuu soo boodayo daaqadani marka ay kuu soo boodo waxaa qaybtan u jeedaa shutdown kadib waxaa dooranay okay inta daaqadan aan furo waxyaabo badan ku jiro laakiin aniga muhiimada restart ma rabo sign out ma rabo switch user ma rabo maadaama shutdown aan rabo computerka inaan damiyo meesha ayaan dooranaa kadib waxaan taabanaa okay hadaa taabto computerkayga sidaas ayuu ku damayaa. waa 5 wado ee ugu fudud ee computerkaaga aad ku damin karto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.